mushkiladeeda maaha laakiin maxaa dhacay waa looga awood sheegtay oo dooda ugu badan ay ka taagan tahay maalmahana ka taagneed sidaa la socotaan dowladda Soomaaliyeed federaalka ah sharciga caalamiga markii la fiiriyo ama dowladnimada markii la qeexayo waxay leedahay wax la yiraahdo de jure power awood sharci dowlad ku tahay dalka matasha laakiin de facto power awoodii waaqica inay xukunto oo dalka kama wada taliso dowladda laakiin si sharci ay u talisaa oo adduunka aqoonsan yahay dadka oo Soomaalida ay kamid yihiin Somaliland waa la iska aqoonsanaa in kastay dhahan waa go'nay waa madax banaanahay laakiin waaqicaas way hoggaansanayeen maxaa cadeynay inay hoggaansanayeen hawaday ku wareejiyeen dowladda federaalka inay maamusho baasaboorkay qaataan oo lacag tiro badan oo musuqmaasuqa looga qaadaa markay dalbanayaan qof marka hawada ogolaaday baasaboorkii ogolaaday viiso inuu diido dhibkeeda iyo mushkiladeeda ma laakiin maxaa dhacay waa looga awood sheegtay wixii markii la isku awood sheegto dowladnimada waxay ahayd in dadka la isku raadiyo oo la kala irdeynin in waxay ahayd dadka la isku soo dumo shacabkii Soomaalida kala aamin baxay aaminaaddoodii kalsoonidooda lagu dhiso wixii kala irdeeyay laga waantoobo waxay ahayd kalsoonida ay dowladdu ku qabaan in la dhiso laakiin waa looga awood sheegtay waxa la yiri waxa in tusaynaa in aan in xukunno awood sheegasha la yiraahdaa oo siyaasadeed waaye waxa laga yaabaa hadii mid ciidan ay jiri lahaydna inay sida dhici lahayd waa lagu faanay waa lagu tamashleeyay maxaa dhacay maxaa ka bii lahaa ninka awoodda sheeganaya haduu kartideeda leeyahay shirkad waxaa la siiyay madaxtooyada dad ehelkeeda ay leeyihiin oo empire loo bixiyay ninkii dagaalamayay ee awood sheeganayay karti xumo iyo musuqmaasuq isku darsaday maxaa keenay maxaa dhacay marka waa la kashifay karti xumadii iyo musuqmaasuqii ayaa kashifay ilaa hadda waxa la awoodi laayahay hay'adii socdaalka immigration iyo shirkadii qandaraaska lagu naasluujiyay inta saddex maalin ay fadhiyaan statement soo saar laayihiin ay uga hadlaan waxa dhacay iyo wixii kama hadli karaan sababtoo ah immigration-kiina waxay leedahay shirkadan khaaska ah ee madaxtooyada ka socota ee la naasnuujiyay yaa lagu sameeyay hacking-ka lagu sameeyay ayaga hacking-ka xaggeeda oo ka yimid shirkadiina waxay leedahay anaga kama imaan immigration-ku ka yimid labadii waa isdiidan yihiin waxna laga sheegi karo wasiiraa loo saaraa gudiyaa loo saaraa macnaheedu waxaas maxaa keenay marka corruption musuq iyo capacity xumo warninaan tayo lahayn oo musuq ka shaqeeya yaa raba dad inuu awood sheegto waxaan ka xumahay in dadkaas loo awood sheeganaya ay dad Soomaaliyeed yihiin ayagana bini aadanka sidiisaba markaad ka daba geyso inuu fal celiyo waa ku qasban yahay intaas maxaa dheer maadaama dawladda aysan xukuminin garoomadaas dadkii ka imaanaya dibadda waa laga qaadaa fiisaha lacagtiisa dawladda federaalkana way qaadataa haddaad Soomaaliland tagtane waa laga qaadayaa mar kale maxaa bixinaysaa marka labo jeer lacag bixinaysaa yaa dhibana ah marka muwaadinka Soomaaliga meel kasta oo jooga dhibana ah muxuu ku qasbanaanaa marka muwaadinkaas inuu iska joogade oo dalkiisa soo aadin maxaa ka ratimaya dhaqaalihii uu keeni lahaa waxa laga yaabaa holiday markuu soo aado fasax ku yahay reerkiisa soo booqdo $2,000 oo ku isticmaala dalka gudihiisa inay baaqato $60 iyadoo la raadinayo yaa waxa laga yaabaa $6,000 oo dalka gudihiisa gal lahayd inay baaqato musuq tayaxumo iyo jahwareer ayaa arintaas keenay waana ayaan daro aad iyo aad u weyn saas daraaddeed haddaad fiirisaan miisaaniyadda baarlamaanka la keenay sanadkii hore fiisooyinka waxaa qornaa inay 13 milyan ka imaanayso sanadkaas 8 milyan qoran waxay ahayd aksi inay sanadkan badatay ahayd laba jeer hoos u dhacday maxaa keenaya cid imaanaysa malade maxaa la soo doonayaa haddii la isku canaadayo awoodii dawladda haddii la isku gumeynayo oo la isku canaadayo cid gumeyn yeelaysa ma laha Soomaali gumeynta waa waxay ku kala tagtay inay diido gabagabadii waxaad ogtihiin baarlamaanka xilkiisa waxa ka dhimay 5 bilood
madaxweynahana waxaa u dhiman 6 bil maanta waxaan joognaa 15 November soo maaha 6 bil u dhiman 15 May waxaa ka dhiman 6 bil wuxuu dalku ku jiraa hubanti la'aan siyaasadeed saddex maamul oo mandate-kooda dhacay oo muddaxileedkooda expire yahay iyo laba dawladda isdiidan yihiin doorasho meel lagu ma oga heshiis lagu yahay markii hubanti la'aan dhacdo xaaladda dhaqaalahan saas ay tahay dalka amnigiisana mar kale aan ka hadli doonaa xaaladiisa ay ka daran tahay mid dhaqaalaha runtii waxa dhacaya marka in qalalaasaha oo yimaado xasiloon darro ay timaado dawladnimadii yareed ay halis gasho waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha waxa uu kor fadhiyo waa og yahay madaxtooyadiisa iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha heerka musuqa oo gaaray miidiyaha kama qarsana waa la og yahay waxaan ugu baaqaynaa inuu talada dhexda iska dhigo oo dadka Soomaaliyeed intii yartaa u hartay 6 bilood isugu yeero ogolaado extensionka muddo kororsigan oo ku waashi iska daayo meel muddo kororsi laga helayo ma jirto horaa loo diiday asaga diiday faaladan beenta ah oo leeyahay guddi doorashaan sameystay oo baarlamaanka ii geynayo muddo la kordhinaya oo wadadii madaxweynihii ka horeeyay way Soomaa guddi doorashada tagay baarlamaanka intaas u baahanahay hana loo kordhiyo filinkaas waa filin horey loo soo galay waxaan leeyahay madaxweynaha u jeedinaya dadka Soomaaliyeed xaaladda aad gelisay ma xamili karaan dawladnimadii dhibaato u keentay dadkii culays dhaqaale u keentay duruufo adag ay u keentay maanta waxaan maraynaa shalay hadii amni darro laga qixi jiray maanta waxa laga qaxayaa dhaqaale xumo iyo nolol xumo laga qaxayaa wiilka badda ku dhimanaya ama gabadha badda ku dhimanaysa kama qaxayaan amni darro waxay ka qaxayaan dhaqaale xumo dabaqada dhexe ee dalkan way guureen kulli dalka dibadiisa u guureen dhaqaalihii intii maal gashi sameeyay lahaydna way la baxeen saan sheegnay dalka xaaladdu wuxuu ku sugan yahay aad iyo aad halis ah waxaan ugu baaqayaa in oo garasho la yimaado hadduu la imaawaayo dadka Soomaaliyeed intooda wax garadka ah ee mas'uuliyadda ay saaran tahay haday yihiin culimo haday yihiin odayaal inta damiirka la ka hadlaya qofka waxa shardi sidiisaba wacyi inuu leeyahay damiirna leeyahay wacyi xaalad dalka oo ka warqabo damiir dhaqaajiin oo leeyahay ganacsatada aqoon-yahanka in la isku yimaado oo dadka ahlu xalli wal aqdiga ah sidii u badbaadi lahaayeen aan u wada duubano wa ma santiin wa salaamu alaykum